ciidanka xoogga dalka ururka 48aad guutada 10aad qaybta 43aad ee magaalada Boordhoobo ayaa ka hadlay xarigii loo geystay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ahna taliyaha ururka Baardheere ee gobolka Gado mudane Faarax Cabdinuur Cali Xade mudane Turbac kaas oo muddo ku xiran Villa Soomaaliya sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha magaaladani Boordhoobo kulanka ahaa mid ay isugu imaadeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta Boordhoobo iyo maamulka degmada ayay kaga codsadeen mas'uuliyiinta iyo madaxda ugu sarreysa dawladda dhexe ee Soomaaliya si deynta sargaalkaasi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaaladani Boordhoobo taliyaha amniga magaalada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ayaa goobta si wadajir ah uga hadlay dawladda dhexena ka codsaday in dib xorriyadiisa loo siiyo sargaalkaasi muddada dheer ku xirnaa Villa Soomaaliya alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wuxuu shirkanagan maanta ku saabsan yahay cabasho waxaa nagu dhacay dhabarjab aan ka tirsanayno dawladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daahir cilmi indhaqarsho gaashaanla sare xasan nuur shuute hadday nagula tala bixinayaan mas'uuliyiinta intaas aan soo sheegay ku tala bixinayaan askari kastoo qaranka ka mid ah shabaab markaa aragta carar haddaadna leedihiin oo taladaas aad bixinaysaan weel soo dhowaada haddaad rabtaan in aan ka xorayno dalka shabaab qawaariij kooxaha maskaxda ka qufulan inaan ka xorayno haddaan rabno waxaan u baahannahay Faarax Cabdinuur baan u baahannahay Faarax waxaan ognahay inuu muwaadin yahay geesi yahay tariyii ururka 49aad yahay khawaariijna uu laayay dambi uma hayno haddaad dembi u haysaan sababta aad dembiga ugu haysaan adinkaa garanaayo maxkamad la'aan baa wax laysaa hadday tahay warmay annagu weliganaba maxkamad maana arag shirkan jaraa'id oo maanta ay isugu imaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maamulka degmada Boordhoobo dhammaantood wuxuu leeyahay hal hadafkaas oo ah codsi la codsanayo dawladda federaalka ee Soomaaliya si aad ogsoontiin baa maraggiiga horreeyay ka dhawaajiyeen waxaa inta muddo ee magaalada Muqdisho ku xiran taliya ka tirsan guutadan 10aad ee qaybta 43aad oo ah taliyaha ururka degmada Baardheere oo ah ururka 49aad oo magaciisa la yiraahdo Faarax Cabdinuur Salaad Cali Jeelana ku magac dheer codsiganaga marka wuxuu ku saabsan yahay cid kasta oo ay qusayso oo ugu horeeyay taliyaha xoogga ciidamada qalabka sida iyo cid kasta oo ay qusayso oo ay ka mid tahay saraakiisha maxkamadda waxaan ka codsanaynaa ninkaas inay xorriyadiisa u soo celiyaan maanta bay osday ilaahay dartiis aysan ku osday dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ay ku osday taliyaha darajada koowaad xasan cali nuur shuute iyo taliyaha xoogga hindi qarshe way ku osday Faarax cali nuur Turbac inay tahay xornimadiisa laxan eli oo may baahan xornimadiisa la sii adooki usoo dhamaay aadimay baa likilay Baardheer la ka dhamaay inay tahay tumi koog of aadimay badilin todoba biloodna lahaay maalintaas is aadan dhatayna may baa bastoolad may ku dheedin lan arag adooku niyo haayan saas dartiya may baan la xaqiiqeeyay ay dambiilka iyo leeyay waxaan u baaqaynaa dawladda federaalka uu hogaamiyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan si ka codsanaynaa haddaan nahay ururka 48aad anigoo ku hadlayo dhammaan ururka 48aad afkiisa uu yahay fadhigiisa degmada Boordhoobo ee gobolka Gado waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah xorriyadiisa loo siiyo Faarax Cabdinuur Cali Xade Turbac oo muddo 32 bari ku xiran meesha la yiraahdo magaalada Muqdisho waxaan rabnaa oo maanta qorraxda u taaganahay annagoo ururka 48aad in Faarax Cabdinuur Cali Xade xorriyadiisa loo soo celiyo si degdeg ah uga codsanaynaa dawladda waxaan dawladda ka codsanaynaa Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare taliyaha xoogga ammaan duulihiisa maxkamadda sargaalkaas xaqdarrada lagu haysto lagu barabagaamay siyaasadda lagu soo qabtay Jubbaland ka dambayso iyo saraakiil kala duwan in xornimadiisii loo soo madax bannayn haddaana loo soo madax bannayn oo arrintaas ay dawladda ku sii dhabar adeeg waxaa dhalan shabaabka la soo qabanayo madax bannaan inuu helo qabashadiisa la qabtay waxaa lagu saleeyay in uu dilay niman shacab ah arrintaas waa been abuurasho waa iftiro waxaa caddeyn u ah
ragga ayagoo lagu eedeeyey inay shacab yihiin asagana uu dilay ayagoodii muuqaala baraha bulshada iyo social media ay ka buuxaan weeyo arrintaas marka arrin la siyaasadeeyay weeyo waxaan codsanaynaa dawladda oo ugu sareeyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre taliyaha xoogga maxkamadaha iyo abaanduulaha xoogga dhammaan cid kasta oo qusayso arrintaas ayada ah xoogga dalka Soomaaliya ka naxayso jiritaankiisa iyo horumarkiisana u taagan inay muwaadinkaas sargaalka ay xurriyadiisa u soo celiyaan